bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta siyaabo kala duwan oo uga hadashay golo dhawaan laga dhawaaqay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. Golahaas ayaa waxa ku dhawaaqay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu cadcad ee Somaliland oo ay ugu horeeyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyihii ururkii hadhay ee Xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise. Mas'uuliyiintan ku dhawaaqday golahani ayaa waxa ay tilmaameen inuu yahay golaha tala bixinta isla markaasina wax badan ka dari doona sida ay siyaasiyiintaasi tilmaameen tala bixinta iyo waliba arrimaha horumarinta dalka Somaliland. Dhanka kale waxa golahani ka soo horjeestay xukuumadda Somaliland iyadoo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland tilmaamay inuu waxba kama jiraan yahay golahani ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta Somaliland. ما تلتقي كذا واقعين هالكيسة قلدي مشاهدين تهدي وقلدي حسين تهدي أنا وفرنتي وحول مقطع وأرخ خلنا صورت واحد يقولها المال اللي منه كسر الجلسية يوم منه كسر عظمنا كرم منه قالوا وسيرة ومقلي وأنا غني قالوا برلمان وأنا غنى قالوا كرسي وأنا غنى قالوا أنا ماشي هتكتبه اللي الدولة شرع بلدي يعني ودك الدولة بلدي شرع بلدي لكن كان المال الله منه كسر الجلسية أنا أحرر لها شربتي احترامك وناجي وضع كل هالعيدان قرن في ديها هسكول منها حلولكونا أما قف قصة شانس كوسومر الدول من وحين كلام لكن تي وحما أنت وحشرع ده كيف سيكل أفغانستان مرك خلق اللسان بالجلدي مرك خلق اللسان دقناشين سمالان إذن كوا وقت بدن يشوت بدن سومري مرك هربا إلى ما أنت سيجوا السن بلي وحان معنا لك كذا وعلان dadna idinku raaci maayo waan laga dhawaaqay Hargeysa golahan anagu waxaan u arkaa kulay inuu yahay golo loo baahan yahay runtiina in laga diro ama markaba fikirkooda laga bixiyo waan ka soo jeedaa xukuumadana waxaan kula talinayaa sidii aad xisbiyada qaranka uga kulmaysataan aad xukuumadii lagu soo dhaqay baarlamaanka ugu kulmaysataan haddaad u aragtay inay khatar ku yihiin labadii gole sharci dejinta gacanta ku haysana kana gacanta ku qabto runtii ma habboona in wixii dastuurka ka hor imanaya ama qarannimada Somaliland meel kaga dhacaya sida runtii ka muuqata mucaaradku maadaama ay sameysteen gole afraad oo aan dastuurka qaranka ku jirin ma habboona in lagu soo kordhiyo waxaan hadda shacab weynaha reer Burco nahay runtii ka biyay ama aan isku mid uga soo horjeednaa ururkaas golahaasi la sheegay in lagu dhawaaqo magacaygu waa Faysal Cali magacaygu golaha madaxa banaan hadii aad ugu marka ugu horeyso golaha madaxa banaan horta golobka badda golobka hore golobka dibadda soo tago ayuu ka tashaday golayaashii Somaliland ee kale waxay u egyihiin inay soo noqdeen hal doolar maana yahay magac kale la baxana golaha ka daayaan way golaha dadka soo tago iyo dalka soo magac kale la baxana horta sidii loo dhigaa haweeyo hadii ay golay lahaan iyo hadii lahaan guddi inta waxaan qabaa horta marka hore dii golobka Soomaaliya golobka dad siima ayuu ka soo noqon kara hadii jiilisi qaas wisla guriga jaamacad degan magaalada Burco xubin ka tirsan golaha xisbiga kulmiye waxaan ku bilaabayaa raayigayga kaga hadlayaa golaha lagaga dhawaaqay Hargeysa ay ku magacaabeen golaha wadatashiga qaranka badbaadada qaranka anigu waxaan u arkaa golaha midaan waxba ka jirin magacaygu waa Cabdishakuur Shaab Cali waxaan ka tirsanaa dhalinyarada gobolka Togdheer waan u qaadacsanahay golaha cusub ee laga magacaabay dalka shuruuc uu leeyahay nidaam uu leeyahay dastuur uu leeyahay ku dhawaaqay waxaan leeyahay badbaadada feerasta Ilaahay baa haya xubin Somaliland ka tirsan ama qof bilaadan oo badbaadaha ayaa ma jirto si kastaba ha ahaatee markan ayaa markii u horeysay golo noocan oo kale laga dhawaaqo gudaha Somaliland tan iyo waqtigii dhidibada loo taagay Somaliland 18 May 1991 oo calanka Somaliland laga taagay gudaha gobolka Togdheer. Axmed Hanad Gurey